السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحام هذا سكال الله سبحانه وتعالى. ثانيا وحام هذا سكال ولا لها سبحانه ما ركتي يقول مرتي صوري يقولون كرامي بيش كان دينتين ونستاحه وحاجر الدد فربضان أو دافع عالمك كوكلا النور وحنو نفر بدن كشجنايا waxaan rabaa inaan maanta idin sheego oo aan idin xasuusiyo qofkii Allah subhanahu wa ta'ala isku xira inaysan cidna wax ka qaadi karayn cidna u soo dhawaan karaynin halkan waxaan ku xusnay qiso waxaan rabaa inaan walaalahay tuso inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku xiraan alle oo la isku xirana qiimaha ay leedahay iyo wanaaga ay leedahay aad ogaataan waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala inaad soo wada xaadirtaan oo aad ka faa'iideysataan qisadan dhabta ah Allah subhanahu wa ta'ala na uu ku anfaco walaalihiina aad sii gaarsiisaan ilaahina waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala inuu ka dhigo mid naafica oo aad ku cibro qaadataan waana saan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajeynayo walaalaha dhamaantiin online ku jira iyo kuwa yarki doona oo qisadan dhageysan doonaba Allah subhanahu wa ta'ala dambigiina ha dhaaf waxa ugu weyn oo qofka muslimka uu helo waa raalaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala raalaahan ka noqdo Soomaaliya way dhibaataysan tahay meel kasto maanta ay ku sugan tahay dhib baa ku haysta Allah subhanahu wa ta'ala dhibtaan ka qaado dhamaanteen dhibtana haysata ee wadankeena iyo diinteena iyo dadkeena haysta Allah subhanahu wa ta'ala ka qaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa bi asmaa'ihi al-husna wa sifaatihi al-ulya qof kasta oo muslim ah oo dhibban ayan kan ha ahaato inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka qaado waxaan rabaa inaan bilaabo qisadu waxay ku bilaabanaysaa sida aad ciwaanka ku aragteen ama qoraalka aan qornay waa qiso runtii aad iyo aad u cibro qaadasho mudan dad fara badan oo xanuunkan uu hayana aan rajeynayo inay ku daydaan gabadha muslimadda ah wadada ay qaadayna ay qaadaan qisadu waxay ahayd gabadha waxaa jirtay muslimada gabadhaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku irsaaqay saddex shay awalan diin ثانيا قرح ثالثا مال صدح ذا الشيء وناكسن شرف في قيمها بدن بو الله اسكو دري الله سبحانه وتعالى قفك اور ربا ايو سيا ربي سبحانه وتعالى gabadhi inta isku daray waxay noqotay gabadh Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga shukrida nimcooyinka Ilaahay siiyay Allah subhanahu wa ta'ala mar walba xasuusata saysa ugu joogtay gabadhi nin baa soo doonay ninka wuxuu ku dhahay walaalay waxaan rabaa inaynu isguursano oo aan ku soo doono oo aad reerkayga noqoto gabadha waxa ku dhaday waayahay waxba kama qabo laakiin aan soo baaro siyarkaaga iyo taariikhdaada waayahay waxba kama qabo muddo kadib ayuu ninkii gabadhi ku akhbar cili wuxuu dhahay maxaad walaal ii haysaa gabadhi waxay ku jawaabtay walaalow waxaan rabaa inaan kugu jawaabo waa sax gabadh calaf doonana hadina calaf doona tahay laakiin hadalkiyo kooban iima qalabtid qof ii qalmana ma tihid ninka wuu yaabay wuu tacajabay shaydaan baa qaaday maado inay hebela maado nina bay maanta qof dumara ay ku leedahay iima qalantid ahad bay waxay u noqotay ninka uu noqotay wax la yaabo ninka shaydaan baa ka qaalan noqday wuxuu u tagay nin saaxiroola ah oo sixir ka sameeyay arrintii uga sheekay xornimo dhibtan baa ay haysta gabar noocaas aan jeclaaday gabadheena saas ay ugu leedahay maxaad ii qaban kartaa ninka wuxuu ku dhahay waxaad siinaysaa hal maalin gabadhaas iyada waxaan ku sameeynaa anaa ku tusa hoosteeda ku keenaya one day ninkii hal maalin buu siiyay wuxuu ku dhahay maalin fulaan iyo soo laabo ninkii waa ka maqnaa ballankii markii la gaaray ayuu u tagay wuxuu ku dhahay maxaad ii haysaa wuxuu dhahay wali waxba kuma haya maalin labaad igu soo laabo maalintii labaad buu ku laabtay maalintii labaad markuu ku laabtay
ayaa wuxuu dhahay haddana maalin saddexaad igu soo laabay maalintii saddexaad ayuu ku soo laabtay wuxuu dhaniyow gabadhii maaragtay hawshii weli waxbaa iga qabsoomi la oo maaragtay gabadhii sixirkii aan rabay inaan kuugu keeno ama aan kuugu soo dumo waxbaa iga yarsi oo waan kari lahay waxaad samaysaa balin fulaan la dhaho oo ninkii sixirka baro khabiithul akbar oo ninkii iyaga sixirka baraya aad ninkaas baa gabadhan kuugu keenay waxna kuu qaban kara aniga waxba kuu qaban kari waayo ninkii buu tagay sidii si la-eg buu ku dhahay maalintii koowaad buu ballamiyey labaad buu ballamiyey saddexaad buu ballamiyey saddexda jeer markuu ballamiyey oo maalinta saddexaad la joogo ayuu wuxuu ku dhahay ninkii saaxirka ahaa ee dadka sixirka bari jiray niyahow gabadhaas inaad u dhowaato aqrabu laka min nujuumi samaa gabadhaa inaad u dhowaato u dhahay waxaa kaaga dhow oo aad reer ka dhigato oo aad calfato waxaa kaaga dhow buu dhahay xidigahaas wax kale iska daa buu dhahay gabadhan xataa waxaan u diray cirfiid maarid cafan waxaan u diray maarid وحفظا من كل شيطان مارد سعيد قرآن كمان جنجاس الله سبحانه وتعالى دقرتيس إيو بلديس وقرآن كل شيء أيان أدري بودها وحبيحته وكسوق من كروه سبب وقبر مسلمة ومسكينة سبب بي انت سو ساحرين انت اسكم مران أي حقوق من كروه سببت محيته وأرن آدي لو تعجبه وقفل بقوله يقف مسلم وسحر لو صدري أو كروه سبب gabadha taariikhda markii la baaray oo la ogaaday oo dib loo raacay culimadii ay baareen waxay dhaheen hameen walba gabadhaas maxay qabataa ma filmada fiirsataa ma Facebook maartay fiirsataa ma heesaha dhageysataa maya habeen walba inta aysan seexan ka horba waxay akhrisaa rabbigeed bahaa xiriir la samaysaa alaysa Allahu bikaafin abda waxay sameysay hameen walba waxay khatimtaa oo akhridaa suuratul baqara Allahu akbar wa sadaqa rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam qofkii suuratul baqara laazima oo akhrista badala ma karta ay sixir ma karaayo uma soo dhawaan karo hameen walba waxa intaysan seexan ka hor hameen alla keeno baqara akhrisaa nabigana sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay suuratul baqara akhrinteedu waa baraka وبركة يهنون يوناق يقول كتجتان كذا وحسر حديث كلا وكيها النبي صلى الله عليه وسلم وليه جورجي بقرة لجو آخري أو جورجي بقرة لجد دار شيدان مصقر وحن لا يتدفر بدن أو ولا لها أو ما أنت حنوسا أو إبها يستو طريقة ذاقاتها إلهي أقول لابتا بيج كي هراء نلشين أتكلها هذين بدلة بيج الصب الله سبحانه وتعالى لص ما يصب كلام كيسنا كودك إلهي سبحانه وتعالى اسكوليد إلهي سبحانه وتعالى بري كلام كربي وحكوين ملها قرآنك وحالي هدي بورا لو كرد جين لها يا بورها سوي بربور لها ين عبسي الله كقام سبحانه وتعالى الشيطان أول إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي ما تدفر بدك الشيطان وحاد سميسان الله سبحانه وتعالى اسكوليبا ما ركتي وناقة يجدكاس نقاتا سورة البقرة اللازمة هو يدين يا أبيهن يا صاحبكن ينولشين هنقطة سورة البقرة أنت سألن كجتجيا إله سبحانه وتعالى وحي حنوا يحنونك الله كقاضي قفل بميس وحنون كدر يا الله سبحانه وتعالى حنونك كقاضي قفل بإله سبحانه وتعالى وحنوي الدين يا الله نحريست بدن إيه هو يمكن الله ينقل نحريست بدن قفل بوحن الله ويدين الله هاس نحريست بدن إبليس أنتو بريء كأجيبي الله سبحانه يدين ويدين يا قف كستميش كربك كدر إنه الله سبحانه وتعالى كقاضي كربوينك الله كقاضي قفل بمشي كحنوسي الله سبحانه وتعالى كقاضي قفل بحي خير ورب الله سبحانه وتعالى هوفضي امتحانك هيست قفل بالله سبحانه وتعالى هكر قاضي دينتنا الله دين حفتي إلهي سبحانه وتعالى حبقين يماركت يكالقعلكين إلهي سبحانه وتعالى الله أذقبتان هويني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قفل بقفكل ولالكس سيجارسي وناقس يا خير كاس إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى هينكون رزاقه هوي يا أبا المرنة هينكردقو وبالله التوفيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفعى وأتكعب رقادتان ونسان الله سبحانه وتعالى كرجينا ولا لها دمانتين أونلاين كجرة يكوى ياركي دونا وقصدان دقيسان دونا الله سبحانه وتعالى دنبقين هداف
waxa ugu weyn oo qofka muslimka uu helo waa raallaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala raallihan ka noqdo. soomaali way dhibaataysan tahay, meel kastoo maanta ay ku sugan tahay dhib baa ku haysta. allah subxaana wa tacaala dhibtaan ka qaado. dhammaanteen dhibtana haysata ee waddankeenni iyo diinteenna iyo dadkeenna haysta allah subxaana wa tacaala ha ka qaado. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculyaa qof kasta oo muslin ah oo dhibban ayankan ha ahaato inuu allah subxaana wa tacaala ka qaado. waxaan rabaa inaan bilaabo qisadu waxay ku bilaabanaysaa sida aad ciwaanka ku aragteen ama qoraalka aan qornay. waa qiso run ahaantii aad iyo aad u cibro qaadasho mudan. dad fara badan oo xanuunkan uu hayana aan rajaynayo inay ku daydaan gabadha muslimadda ah, waddada ay qaadayna ay qaadaan. qisadu waxay ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحام هذا سكال الله سبحانه وتعالى. ثانيا وحام هذا سكال ولا لها سبحانه ما ركتي يقول مرتي صاري يقولون كرامي بيش كان دينتين ونستاحه وحاجر الدد فربضان أو دافها عالمك كوكلا النور وحنو نفر بدن كشجنايا. waxaan rabaa inaan maanta idin sheego oo aan idin xasuusiyo qofkii allah subxaana wa tacaala isku xira inaysan cidna wax ka qaadi karayn, cidna u soo dhowaan karaynin. halkan waxaan ku xusnay qiso. waxaan rabaa inaan walaalahay tuso inay ilaahay subxaana wa tacaala isku xidhaan. alle oo la isku xidhana qiimaha ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay aada ogaataan. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaad soo wada xaadirtaan oo aad ka faa'iidaysataan qisadan dhabta ah. allah subxaana wa tacaalaana uu inku anfaco, walaalihiina aad sii gaadhsiisaan. ilaahina waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu ka dhigo midna. ninkii shaydaan baa ka qaalab noqday, wuxuu u tegay nin saaxiroole ah oo sixir ka sameeya. arrintii buu uga sheekeeyey. wuxuu dhan dhibtan baa ay haysta, gabar noocaasaan jeclaaday, gabadhayna saasay igu leedahay, maxaad ii qaban kartaa? ninka wuxuu ku dhahay waxaad isiinaysaa hal maalin. gabadhaas iyadaa waxaan kuu samaynayaa, anaa ku tusa, hoosteedaan kuu keenayaa, one day isii. ninkii hal maalin buu siiyey. wuxuu ku dhahay maalin fulaan ii soo laabo. ninkii waa ka maqnaa. ballankii markii la gaaray ayuu u tegey. wuxuu ku dhahay maxaad ii haysaa? wuxuu dhahay weli waxba kuuma haya, maalin labaad igu soo laabo. maalintii labaad buu ku laabtay. maalintii labaad markuu ku laabtay ayaa wuxuu dhahay haddana maalin saddexaad igu soo laabay. maalintii saddexaad ayuu ku soo laabtay. wuxuu dhaniyahu gabadhii maaragtay hawshii weli waxbaa iga qabsoomi la oo maaragtay gabadhii sixirkii aan rabay inaan kuugu keeno ama aan kuugu soo dumo waxbaa iga yarsi oo waan kari la'ahay. waxaad samaysaa balin fulaan la dhaho oo ninkii sixirka baro, khabiithul akbar, oo ninkii iyaga sixirka baraya aad. ninkaas baa gabadhan kuu keenay, waxna kuu qaban kara, aniga waxba kuu qaban kari waayo. ninkii buu u tegey. sidii si la eg buu ku dhahay. maalinta koowaad buu ballamiyey, labaad buu ballamiyey, saddexaad buu ballamiyey. saddexda jeer markuu ballamiyey oo maalinta saddexaad la joogo ayuu wuxuu ku dhahay ninkii saaxirka ahaa ee dadka sixirka bari jiray, niyahow gabadhaas inaad u dhowaato aqrabu laka min nujuumi samaa. gabadhaa inaad u dhowaato u dhahay waxaa kaaga dhow oo aad reer ka dhigato oo aad calfato, waxaa kaaga dhow buu dhahay xidigahaas. wax kale iska daa buu dhahay. gabadhan xataa waxaan u diray cirfiid maarid, cafan waxaan u diru dhahay maarid wa xifdan min kulli shaytaanin maarid. soo quraanka ma jinnigaas allah subxaana wa tacaala dhagartiisa iyo baladiisa uu quraan ku sheegay ayaan u diray buu dhahay. waxba xitaa uu ka soo qaban kari waay. sabab waa gabadh muslimada oo miskiina. sabab bay intaasoo saaxiran inta isku mareen ay wax uga qaban kari waayeen. sababtu maxay tahay? waa arrin aad iyo aad loola tacajubo oo qof walba uu leeyahay qof muslin ah oo sixir loo soo diray oo kari waaya sabab. gabadha taariikhdii markii la baaray oo la ogaaday
oo dib loo raacay culimadii ay baareen waxay dhaheen hameen walba gabadhaas maxay qabataa ma filmada fiirsataa ma Facebook maartay fiirsataa ma heesaha dhageysataa maya habeen walba inta aysan seexan ka horba waxay akhrisaa rabbigeed bahaa xiriir la samaysaa alaysa Allahu bikaafin abda waxay samaysaa hameen walba waxay khatimtaa oo akhrida suuratul baqara Allahu akbar وصدق رسول صلى الله عليه وسلم قفك سورة البقرة لازمة أو أخرسته بطل مكرت أي سورة وحاجرتي مسلمة كوداس الله سبحانه وتعالى وحكو إرزاقي سدح شيء أولا دين ثانيا قرح ثالثا مال سدح ذا الشيء ونعكسن شرف في قيمها بذنبه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قفك أورب أيوسيا ربي سبحانه وتعالى قبل أنت أسقط دري وحين نقطة قبل إلهي سبحانه وتعالى وشكر ذا نمعينك إلهي سيه الله سبحانه وتعالى مرول بحسوسته سيسا أقول جوكت قبل نمبا صوتوني نيجي حكو له ولا له وحان ربا إن إسقور سنو وأنكو صوت دونه وأظهر كي نقطة قبل وحكو له دوايه وحبك من قبل لكن أن صوبار سير كاجا يا تاريخ هذا وايه هاي وحبا كما قبل مدكدب أيو نينكي قبل كو أخبار على وحود محاد ولا إيه هيسا قبل وحي كو جوابتي ولا لو وحان ربينا كو جوابه وصح قبل على فدونا هذين على فدونا تاي لكن هذا الكيو كوبن إيما قلبتيت قف إيقل من متهد نينكو وو يابي وو تعجبي الشيطان باقي هذا ما ضو إني هبله ما ضو نينا بما أنت قف دمرة أي كل هذا إيما قلبتيت أحد بي وحي نقطي ونينكو نقطي وحلا لا يابا